ilaa iyo lacagtooda 20 billion haystaan oo Ethereum, Bitcoin, crypto kala duwan ay sameeyaan oo very professional ah. Marka waxaa dhici karta ma qofkii baasur ayuu iloobay ma wax baa looga shakiyey laakiin ma ahan dad oo maaragtay intan aan ka aqaano Robinhood waa shirkad oo reliable ah oo maaragtay mar walba dadku lacag si uga soo baxaan hadduu markaas down uu yahay waxa laga yaabaa mararka qaarkood inay dhacdo blockchain-ka kuwa ka mid ah Binance-ha platformada kale in ay a certain time adoo kala soo bixiraba down ay yihiin laakiin waxay ku nool yihiin oo dhan waa reliability ay ku nool yihiin laakiin company oo maaragtay estimationkiisa 20 billion oo haysto oo xataa 8 sano furan in maaragtay qof uu yiraahdo waa dhici kartaa hal qof in maaragtay qalad uu sameeyo ama wax ay jiraan laakiin weli ma aanan arkin dad complain ka sameynaya waxaan arkay dhowr maalmood ka hor adiga 3 maalmood ayaan filayaa in xogaa customerka Twitter-kooda ay soo gelinayeen in maaragtay systemka uu down u yahay serverada qaarkood laakiin markii dambe restore ku sameeyeen waa wax adiga technical ah laakiin qofku dhawaa ka soo saaran way lacagtaas aniga kulli waa markii ugu horeyso aan maqlo very unlikely haddii aan ku soo laabto ugu dambeyn su'aashaada dadka recommendation aan u sameeyey recommendation macnaheedu ma ahan inaan aniga aan responsible ka ahay haddii maanta aad tiraahday lacagta haddii ay aan qasaaro maadaama mas'uulka haddii aan ku heshiino aan ku yiraahdo ha anaa ka mas'uula haddii marka lacagta ay gaarto 100 kunna adnahana iloobin taas ayaan dhahay inta badan laakiin hadda Dogecoin wuu socdaa waana kan ugu raqiisan oo anda dollarka maalinta dollar soo gaarana cirku ku dhigaya 10 20 sida hadda aan ka maqlay gabadha Xamda oo Ethereum-ka oo ku bilowday 2 senti amal ku bilowday oo hadda intaas oo kun u maraya ama santa ustaad aad u maasantahay saaxiibada gacan noogu soo biray soo dhawaada waa habeen kale iyo bahda falanqeeye waxaa noogu casuman oo waqtigiisa qaaliga uga faa'iideeyay dadka Soomaaliyeed macallin Cabdinaasir Ismaaciil Sooro oo arinta cryptocurrency-ga ka jawaabaya su'aalo ku saabsan qofka hal su'aal buu leeyahay dadka gacanta soo taagtan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan barnaamijku intaan dhammaan aan uga wada faa'iideyno dhammaantood hal su'aal baa leedahay oo barnaamijka kaliya ku saabsan saaxiibada gacan nooga soo biiray dhammaantiin soo dhawaada waxaan markaan siinayaa maxamed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلكان كسلامة معلنك وين معلنكيغا الأستاذ صولة iyo daadihiyaasha oo Kombe iyo Cabdirraxmaan miyaa mise Cabdirraxmaan run ahaantii waxaan rabay macallin Soolo waxaan ku weydiinaa waxaan marinaa 4 sano ka hor ayaan kusoo biiray dunidan cryptocurrency-ga waxaana ka mid ahayd maxaa ragga aan wax ka bartay aan YouTube-ka daawo jiray 3 sano ka hor lama heli jirin qof Soomaali oo Bitcoin ka hadlayo waxaan rabay su'aasha aan wato waxaa waaye Mr. Sola 3 sano ka hor ayaa waxay igu tiri Ripple-ka ayaa ka hadli jirtay waana igula talagalay siinka adoo imaaday Ripple-ka ama XRP iyo Dogecoin prediction marka la sameeyo sanadkan yaa isla yaa xawaaro ku socdo waa aad ayaan ku xasuustaa markii aan isku aragnay magaalada Helsinki ciyaaraha aan u imid wagan laacibku inaan ahaan jiray marka XRP iyo XRP waa ka ansiyanaysan waa ka duqsan yahay oo maaragtay hadda price-kiisa waxaan filayaa 1.279 inuu yahay halkii Ripple-ka haddii history ahaan loo fiiriyo wuxuu ahaan jiray kuwa maaragtay gold price waxa la dhihi jiray waa gold version waxa la dhihi jiray oo cryptocurrency la dhihi jiray laakiin ayaamahan dambe xogaa waxa ka soo canbaxay Dogecoin-kan waayo waxaan filayaa in uu ku dhaafay maxaa la yiraahdaa su'aalihii hore oo ahaa labada waxyaalood ugu muhiimsan oo ku soo celinaya marka haddii loo fiiriyo cryptocurrency rankigiisa ayaa la fiiriyaa sida Champions League oo kala ciyaaraha la fiiriyo rankigiisa number 4 ayuu ku jiraa horta dii la fiiriyo sidiisaba market cap-ka uu hayso kan oo muhiimka ana wuxuu yahay 59 bilyan oo dollar market cap-kiisu yahay oo shaqeeyo iyo volume-ka shaqeeyna wuxuu yahay ilaa iyo 20 bilyan oo dollar haddii loo fiiriyo kan kale kan waa soo socda price ahaan kana ka sareeya laakiin hadda labada waxyaabada muhiim ah oo market capital-ka oo lacagtaas haddii maanta la soo saaro crypto la shilling Somali la soo saaro laba mid ayuu noqonayaa oo muhiima kan kood wuxuu noqonayaa
macaan baxaya dad ma taageerayaan maalqabeena ah Soomaali ah sida Hormuud oo kale Premier Bank Salaam hadday oo taageeraan ay maalgashtaan caan u noqonaya iyo marketkiisa imisa waay marka hadda waxa market badan oo rankingna number 4 ah XRB oo Ripple-ka ah ayaa market ahaan badan laakiin haddii aan noolnahay isku soo laabano dhowr bilood kadib ama sanadka soo socda bilowgiisa waxaad soo xasuusan doontaa in ranking uu ka hormarayo market capitalka iyo volumekiisa uu ka weynaanayo marka hadda ku oran maayo iska iibi laakiin hadda waxaan arkaa kulli bitcoin Doge-ka kulligood xilligan aan kula hadlay marketka hoos ayuu dhacay minus ayuu galay fluctuation ayuu samaynayaa Ripple ayaa akankay oo plus 41.23 hadda kor u sii kacay oo noqonaya meesha maaragtay ugu sareysa marka waa fiican yahay XRP si fiican ayuu u shaqeeyaa kor u socdaa laakiin aniga haddaan ahaan lahaa maanta Cabdinaasir ahaan waxaan gadan lahaa Dogecoin-kaas ayaan maalgelin ku samayn lahaa anoo og Ripple inuu yahay mid fiican oo rankigiisa meel fiican uu yaalo waa maasanta هذا أمدن معلن مركلان نقول عشو عرارتا سلانتا سو قابية ما دام تدور عليه هنا كوتشران تقول كوتشران عشان بقول سرو دافعان marka caraarta la soo gaabiyo su'aasha macalligtoosa loo weydiiyo si walaalka kale fursad u helo qofkuna hal su'aal buu xaq u leeyahay in la saaro macallinku ku dalbanaan wax ku su'aalin aad iyo aad weli ku soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلنك أدبا iyo dhammaanyaasha barnaamijka macallin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aniga waxaan isticmaalaa Coinbase marka waa la maqlaa malayna si fiican marka aniga Coinbase aan isticmaalaa marka Doge-na kuma jiro oo maaragtay hadda currency-ga hadda ku jiro kuma jiro marka Binance aan ka gatay marka ma la isdhihi karaa Coinbase way ku soo dari karaan Doge oo maaragtay oo mustaqbalka macnaha currency-da kale kuma jiro asaga markii laga fiiriyo midda kale oo aan ku darsan lahaa waxay tahay kaarka oo macnaha oo lagu soo diraayo oo maaragtay oo debit kaarka macnaha kaarka isticmaalaysid oo Coinbase ma lagu isticmaali karaa labada macnaha Binance iyo maaragtay iyo Coinbase kaarka isoo kaar waxaan haystaa oo Coinbase aan haystaa waa maasanta aad u maasta waa runta oo oo value-giisana waa ilaa iyo 2 billion ayay ku dhowdahay طبعا Doge-ka kuma jirto laakiin maraan email aan u diray oo waxay referral ku sameeyeen oo ay geeyeen oo yiraahdeen waxaad aadaa meesha qofkan mudka kali waxaad aadaa meesha Q&A-ga dad badan ayaa weydiiyey in lagu soo darayo waxay yiraahdeen we are considering waan ku soo daraynaa eventually dad ahaan marka la gaaro waxaana ku qasbaya marka $1 uu gaaro kan cirka uu sii galo hadda waxaan maqlayaa xataa Elon Musk in ilaa iyo $5 billion oo dhanka Tesla iyo dhanka dayax gacmeedka profit ay keenan ay ku soo darayaan hadduu kaas ku soo daro oo xataa uusan sheegin hal Twitter uu soo qoro waxaan filayaa inuu $1 usii dhaafayo xilligaasna Coinbase ku dareen Coinbase waa most secure most reliable platform oo loo isticmaalo cryptocurrency haddii ay kaar ay ku soo diraan tabcan wuxuu u shaqeeyaa sida bangi ayuu u shaqeeyaa qaarkood ay u shaqeeyaan aniga dhowr kaar ayaan hayaa oo aan isticmaalo laakiin kan oo aan ka helay Coinbase-ka tabcan kan iyaga aan ka gatay oo account-ka meesha igu jiro ay ii soo direen oo baaqi wax ku jiro ayaan ku isticmaalaa marka cross platform inuu jiro in kala Allah yaclam ma arkin weli cross platform isagoo ah tusaale ahaan waxaan ka wadaa lacag oo bitcoin-ka hadda aniga aan isticmaalo oo kaarka aan ku isticmaalo haddii aan shirkad kale oo aan ka gato Dogecoin oo ka tusaale ahaan Binance oo kale ma ku soo dari karaa kan weli ma aan tijaabin ma arkin maybe way ku shaqeysaa waan loo isticmaali karaa laakiin taas waxaan kaga maarmay dhowr kaar oo shirkado kala duwan shirkadii aan ka iibsaday crypto kaarkeeda ayaan ka dalbadaa aan soo diray laakiin kan ugu fiican oo hadda la isticmaali karo aniga aan arkay reliable oo diyaaradaha xataa Emirates waa isticmaashaa Qatar waa isticmaashaa Etihad waa isticmaashaa hoteeladan hadda Four Seasons kan oo Abu Dhabi group la yiraahdo waa isticmaashaa waxaan ku arkay Nairobi hoteelo isticmaalaan ku arkay Zanzibar waa ku arkay Istanbul waa ku arkay marka
waxaan ku dhihi lahaa hadda focuskaaga ha noqdo kan keliya aad haysid coinbase-ka caadi u isticmaal haddii ay ku daraan kan isla platformkan ayaa ka wada isticmaalaysaa laakiin waxaa ka fiican dhowr kaararka waxaa dhici karta mararka qaarkood mid inuusan kuu shaqaynin mid in meelo qaarkood la aqbalin ayaa dhici karta meelo qaarkood badan lagama aqbalo hadda abu dhabi oo kale meelo badan ayaa laga aqbalaa oo xataa maqaayadaha yar marka laga afurayo xataa waxay ku leeyihin we accept cryptocurrency ku leeyihin bitcoin waa isticmaali karna marka kusoo afjiraya f xasan haye السلام عليكم يا مغلق حسن si fiican أنا معي واحد فيصل بوسطن waxaa ku jira forex trader baan ahay day trader baan ahay marka su'aashan weydiinayo ustaadka ustaad solo su'aashan weydiinayo waxay tahay ustaadii dadka doonaya inay maal gashtaan bahalkan cusub ee Dogecoin-ka ee weliba Soomaaliya jooga ma waxay u baahan yihiin in baasaboor ajnabi oo qaraabadooda ay isticmaalaan mise baasaboorka Soomaaliga way ku furan karaan hadday furanayaan halkee ka furanayaan su'aashaasi taas weeyaan waa mahadsan tahay waxaan filayaa hadda inaad nagu soo biirtay su-aasha su-aal la weydiiyey laakiin waan ku celinaynaa waayo dadka gadaal nooga soo biiray ma ogaan karaan waa runtaayo basaboor soomaali ah aniga waan haystaa basaboor soomaali ah intaan ogaa dhibka keliya ka jira wuxuu yahay proof of address ma jiro oo verification samaynaya marka inta badan waxaan idhaahdaa qof adiga qaraabada ah saaxiib ah walaal ah wax kale kuu samayn maayo adiga kaala wareegi maayo waxba kuu samayn maayo maanta qof la aamini kara ma jirto waxba la iskuma aamini kara xataa xaaskaaga lama aamini kara adduunka wada aragteen waxa ka socda marka qof maraykan jooga ama yurub jooga ama meelaha kale ee addressyada ay ka jiraan jooga especially Europe iyo North America iyo maraykan jooga haddii aad tirahdid waxaan doonayaa in aan furto uu asaga marka uu kuu furo ayaa lagu samayn karaa laakiin basaboor soomaali xilligan ku socon maayo laakiin inta kale adiga ayaa isticmaalaya controlkaaga ma dhici kartaa qofkaas haddii wax walbaa dhici kara qofkuu dhiman karaa qofka waxaa dhici kartaa in maaragtay qalalaasidin dhex maro qofkaas ma soo ceshan karaa maya wuxuu u baahan yahay security-gaaga authentication-kaaga telephone numberka inta badan google app isticmaalaan idhahda oo security u wanaagsan laakiin waa riskiga la imaan kara waayo wadankii male address male basaboorkana maahan inay keliya xataa kenya iyo uganda iyo kuwaan xataa ma aqbalaan basaboorkooda hadda intaadan soo gelin kar waxaan oga sheekeynaa nin hindi ah oo kenya aan ku ballanay oo ganacsada weyna waa laga diiday markii dambe waxaan maaragtay samayno wadanka UK waxaan filayaa UBA baxay aan kusoo laabanaya ustaadka cilad yar baa jirta saan u malaynaya marka waa noo soo laaban doonaa insha allah cryptocurrency baan ka hadlaynay waxa ay noo martigelisay bahda falanqeeya marka insha allah ustaadka markuu noo soo laabtan si wadana haddii la haydmo maadaama oo dad aad u fara badan ay joogaan hal su-aalaan kusoo koobaynaa isagoo soo koobaya cabdiraxmaan ay aburaas ma hayo macalinkiiska sugaynaa meeshan caawa cashir bilaashaa ka socdee noodka samaysta inkastoo aan arkayay qolyihii Soomaali Club ee Facebook page-ka lahaa ee recording ku wada taasina waa fursad kale soo dhawaada dhamaantiin waa maasan tahay ustaad cabdiqani ustaad cabdiqani marka macalinka waa ka soo laabtay mahadsantahay buraas inta macalinku maqan yahay baan wax yidhi macalinku soo laabtay banne uu soo laabtay waa soo laabtay waa idinka raali gelinayaa imaaraadkan jooga wax laga ogol yahay ma jiro marka mar walba VPN inaan idinkama tegin VPN ayaan out lock ay ka dhigan anoo ku laabta marka raali gelinayaan ka bixinaya ustaad aad mahadsan tahay sida aad isugu hawsheen inaad barnaamijkan dadkan ka kaafiso waa runtii waa kaga mahadcelinaa iyadoo caqabadaas jirto faysal su-aashii waa laga jawaabay saan rajeynaya faysal su-aashaad waa laga jawaabay soo laakiin khadka ka gogo'ay markuu jawaabta wadiyay qaybihii ugu dambeeyay codkiisa lama maqleen ma garat si fiican lama maqleen xoogaa waa gogo'ay waa run ustaad si kale ma ugu jawaabi kartaa codkaaga gogo'ay ha waxaan filayaa faysal inay ahayd ma lagu furan karaa baasboor Soomaali soo maaha aad iyo aad haddii lagu furan kasaba xagee laga furan okay
وباسبور Somali waa very very difficult in lagu furto Kenyaatiga Ugandeska saas oo kale waxa kaliya hadda u baran qofkaas wuxuu noqonayaa inuu tago oo la hadlo qof saaxiibkiisa ama walaalkiisa ama qaraabadiisa ah oo North America ama Europe jooga uu yiraahdo waxaan doonayaa cryptocurrency inaan furto oo maaragtay aan isticmaalo documentiga qofkaas kaalama wareegi karo tabcan information-ka dhan password-ka inta badan waxaa la Google app-ka security-ga 3D-ga isticmaala marka wax kasoo dhici karaan aan ku soo celiyo qofka waa dhiman kara qofka qallaasay dhex mari kara waa istiqaal karta wax walba laakiin qofkaas marnaba ma soo ceshan karo ma dhihi karo baas anaa iskala magacayga waa kan ma oran karo waxaana wuxuu noqonayaa in adiga aad la soo bixi kartid adiga aad investment ku samayn kartid laakiin haddii passport Soomaaliga midna waan arkay passport Soomaaliga haddii uu la socdo ID leh cinwaan tusaale ahaan aniga passport Soomaaliyan haystaa Ingiriiskaan deganahay Mareykanka iyo waxaan tagaa iyo Canadaan tagaa iyo meelaha kale haddii aan hayso driving license Mareykanka Ohio ama Minnesota ku diiwaan gashan waxa waan isticmaali karaa marka ma fiiriyaan kaliya waxay fiiriyaan geolocation-ka fiiriyaan IP address-ka haddii aan haysto passport Soomaaliya iyo driving license oo Mareykan oo xamar aan ka rabin ka sameeyo ma sameyn karo Hargeysa haddii aan rabin ka sameeyo ma sameyn karo marka saasi kala duwan tahay laakiin haddii dibadda aad joogtid waad ku sameyn kartaa marka ma qaldi karaa tabcan waa la qaldi karaa waxa la dhihi karaa VPN adag kan ugu adag waxa la yiraahdaa hide my ass ayaa la yiraahdaa VPN-ka waa taas kale hadii la isticmaalo Mareykanka inay joogto ka dhigaya haddii aad si driving license magaca ku qoran yahay oo verified ah waan gelin kartaa tabcan driving license-ka aad gelisay isla markii intay la xiriiraan meesha laga bixiyo ma oranayaan farxaan ama faarax ama jaamac iisu xaqiijin inuu isaga yahay laakiin marka dambe ay ku anfacaysaa aweeda Soomaaliya adoo jooga passport Soomaali haysta waa almost impossible xilligan maybe in la bedeli doono laakiin waxaad u baahan tahay mar walba address-ka iyo verification-ka iyo bankiga ayaa kasii muhiimsan waxaas oo dhan maasani sayga السلام عليكم aad baa idin salaamaya cabdinaasir nadbasala aniga laba su-aasha koowaad ba waxay tahay Dogecoin sayga xageen sayga aan ka dhex galo maadaama dadku aad u badan yihiin hal su'aal kusoo koobashay gudoomiye laba su-aalood ay gaagaaban way aad bay iguna muhiim igu yihiin mid waa mid shakhsiya iyo mid saaxiib naga ama ninka Okombe haddii cryptocurrency tayda waa nin oday ah soo dhaweey waa mahadsan tahay aad waa mahadsan tahay cabdinaasir Dogecoin waxaa laga iibsan karaa ma in isaga meel gaar oo laga iibsado leeyahay xagee laga iibsan karaa su-aasha koowaad weeye oo Coinbase lagama iibsan karaan filayaa waadna sheegtay laakiin meeshee laga iibsan karaa su-aasha labaadna waxay tahay Coinbase bay ku saabsan tahay Coinbase markaad wax ka iibsato aad tusaale ahaan iibsato Bitcoin iyo Ethereum ma inaad markaa rabto yacni mar hore way isku xidhnaan jireen asaga iyo waalidkiisa marka hadda yacni mararka qaar waxaad dareemaysaa inaysan isku xidhnayn marka ma inaad ka yacni transfer ka samaysaba yacni inay fahantay baan rajaynaya insha allah haddii su-aasha is clear tahay aad iyo aad waa very clear tan labada ayaan ka jawaabaya ha way isku xiran yihiin aniga ma aqaano last 24 hours in la bedelo in kale laakiin intaan ogahay way isku xiran yihiin as app hadduu ahaan lahaa Android hadduu ahaan lahaa iOS oo dhanka Apple-ka way isku xiran yihiin waana meel kale inaad uga baxdo uma baahnid haddaad iibsanaysid iyo haddaad iibinaysid trade-kana waa socdaa volume-kiisa kala duwan haddii aan leedahay Bitcoin Cash Ethereum 2 iyo kuwa kale kala duwan iyo BNB Binance laftigiisa haddii aad u baahan tahay Dogecoin tabcan way ku soo dari doonaan waana ka hadalnay laakiin hadda kuma jiro meeshan waxaad ka iibsan kartaa Binance platform-ka ayaa ka dhex iibsan kartaa cashar ayaa jira waxaan soo geliyey shalayna waan soo geliyey Facebook page-kayga iyo wuxuu ku jiraa iyo profile ku jiraa YouTube-ka Solar Portal waa ku jiraa kaas ayaad taas uga iibsan kartaa laakiin inta badan dadku ma jecla meelo kala duwan inay wax ka kala iibiyaan Coinbase way ku soo darayaan laakiin ma aqaanan berri bay ku soo darayaan sanadka dhammaad ku soo darayaan eventually ayay yiraahdeen waan ku soo dari doonaa waqtiga la gaaro laakiin labadan wallet-ki kan caadi u shaqeynaa isku xiran yihiin inaad ka dhex baxda habayraatee maahan unless wax kale isbedeleen last 24 hours waa mahadsan tahay ustaad waa mahadsan tahay jeelanahay waan salaama asxaabta madasha iyo ustaadka waxaan rabaa inaan weydiiyo Dogecoin iyo mustaqbal intee leeg uu leeyahay anoo sport trader ama santa طبعا
waan ka hadalnay waana leeyahay sport traderskan aad maqlaysaan dhalinyarada waa muhiim waa qof maalin kasta ka shaqaysta oo gada oo dadka oo ma aragtay investorska ah ay kala gataan kala iibsadaan waxay rabaan sameeyaan lacagtooda kala soo baxaan dushana ka eegtaan marka kan waa leeyahay kulli intaan ka arka aniga I was very impressed aad baan ula dhacay sababtoo ah ninkan Elon Musk la yiraahdo waa nin unpredictable ah oo hadaladiisa wuxuu doono sameeyo mararka qaarkood shirkadiisa 20 billion ayaa hadal uu soo qoray ka lunta mararka qaarkood waxyaalo uu soo qoro laakiin wuxuu aad u xiiseeyaa oo competition uu kula jira Bitcoin kan iyo Ethereum iyo Ripple kan ayuu kula jira sida awgeeda mustaqbal waa leeyahay maalinta $1 uu gaaro oo hadda uu gaarayo anytime uu noqonayo wixii ka dambeeya sida dayax gacmeedku u duulaya mustaqbal waan leeyahay haddaa sport trade tahay markaas waxaan dhihi lahaa $10,000 oo kale qofka haysta inuu geliyo lacagtii triple ama quadruple ay noqonaysaa way 4 iyo 5 jibaarmaysa marka waa mustaqbal ayuu leeyahay ma dhici kartaa inuu gebi ahaan crash uu noqdo way noqonaysaa laakiin adiga marnaba lacag kaa lumayso waayo waxa mar walba waxaa la fiiriyaa inta investment ku gelisa ma ahan faa'iidada kuu soo baxday haddii uu $10,000 uu joogo xabadkii adna aad ku iibsatay $1 oo $1 ku soo noqdo weli ma aadan saarin oo ku jirtaa waana loo daayaa panic buying selling lama sameeyo haddii aad aragtid cryptiga aad iibsatay oo hoos u socda hadaad aragtid joogso is adkee ma sii dhacayo waayo marba waxaa jirta bitcoinka dadku panic ku dhacay oo ay islahayeen baalkii hawadu ka baxay waxaa ka hadlay nin billionaire ah oo Maraykan ah oo investmentiga ugu waaweyn Warren Buffett yiraahdaa ka hadlay oo yiraahday wax soconaya ma aha dhulku galay dadkii way baqeen laakiin markii dambe waxaad arkaysaa $50,000 lagu dhaafay waxaana lagu sii wadaa dhamaadka sanadka la yiraahdo inuu $100,000 gaaray marka su'aasha tan ka jawaabo waa good investment in long term uu noqonayaa waana wuxuu noqonayaa one of the best uu noqonayaa kulli sidoo hadda ku socdo insha Allah ustaad waa mahadsan tahay waxaan dadku xasuusinayaa hal su'aal waxa uga dhignay maadaama dadku aad u fara badan yihiin aan rabno dhammaantood su'aalaha waxay ugu muhiimsan inay ka faa'iideystaan oo ustaadka weydiiyaan hadda su'aalo badan qabto oo maankaa ka baxayana dadka kale aan rajeynaya inay ku weydiiyaan marka waa dadka ku weydiinaya marka insha Allah hal su'aal ku soo koobnaa idinkoo noo raali ah Naciim walaalka soo Naciima السلام عليكم أنا سؤال أن قبوا حواي هدان ربع عاوضا إن عن قطو دوج كوين ويب سايت ونكسر عن كجدان كرو يو روت كأن عمرك جد كأن عمره إن عن قطو إنه يعني investment جاس وسيف إياه أو عن قرنا يو إن how to handle it ما كود أنا كتريجين يو حسن سمينا إن عن قطو مل إسكيا لو إسك كوران ربع so جد كعمرك كرا أدو ما حسن ولا نعيمة وما سنتها very simple واحد آذيسا فيسبوكيga ama solar portalkii kuu fudud shalay ayaan soo geliyey barnaamij la yiraahdo sida loo furto meesha laga bilaabo adoo xataa wax idea adan ka haysanin sida loo furto waxaad u baahan tahay kaliya baasaboorkaaga inaad gacanta ku heshid ID-gaaga iyo kaarkaad ku iibsan lahayd oo kaarka hadduu yahay debit card hadduu yahay credit card aniga inta badan waxaan yidhahdaa dadka waxaad isticmaashaan credit cardka isticmaala hadday shirkaddeedina ogolanayso sababtoo ah mararka qaar shirkadda wixii $100 ka badan ama £100 waddankaa joogtay ku xiran tahay haddii xataa ay kaa lunto xataa haddii la goosanayo ticket credit cardka ka fiican sababtoo ah shirkadaha credit cardka master iyo visa ay kuu soo celinayaan lacagtada haddii xoogaa meesha ay dhibaato ay ka dhacdo marka clipkaas ayaa jira haddii wallkayga cabdinaasir ismaaciil aa gashid shalay waxyaalo badan soo qoraa maalin walba hoos usii raacdo waxaad arkaysaa qaabka loo furto platformkan Binance la yiraahdo oo BNB-na samayso qaabka loo maalgashto waxaan ku oran lahaa wixii tabartaada ah maalgasho security adag oo two factor ku xiro kulli way ku tusaysaa qaabka loo sameeyo kadibna isaga jiifo iska ilaa waxda lix bad ha fiirinin marka dambe maalinta lacagta ay ma aragtay ay ku barakowdo aniga waxa kaliya aan ka rabo commission kaama rabo waxa inaad dhahdo rabo bes qalbiga thank you inaga soo dhahdo waa maasantahay Naciima maxaan waan su'aal ku darsado ma jira website lagala socdo wararkan ku saabsan cryptocurrency trading say isu bedelayaan waaba kan ugu badan adduunka wax hadda ka badan haddii Google-ka aad gashid oo aad fiirisid iska badaa meel kale aadin waxaad aadaa waxaad Binance oo kale hadda soo platform ma ahno xataa cryptocurrency ay leeyihiin laga gato Binance haddii aad gashid wuxuu leeyahay waa Bitcoin exchange cryptocurrency exchange uu noqonayaa
oo ah waxta ugu weyn ma ahan waxaan aad uga helay simplicity oo ah qaab loo isticmaalo buy crypto market trade derivatives iyo finance wuxuu ku leeyahay buy and sell cryptocurrency isla markaa wuxuu ku tusayaa hadda aniga computerkayga backgroundkiisa laptopka isaga ayaa ku fadhiya dhowr ayaa ii yaala oo tradeka aan ka eego isaga u furan Binance sababtoo waxaad arkaysaa live 24 hours marketka haddii uu ka xirmo hadda aan idila hadlayo Dogecoin plus 11% ayuu kor u kacay marka is a matter of time noqdo marka qofkii raba inuu arko .com gal meesha kala soco marketka asoo weli waxaan jeclanahay desktop asoo download garayso waayo internetka waxa ka fiican desktopka in asoo waa secure waa fast waa trading experience aadan weliga ilooweyn wuxuu ku shaqeeyaa Linux wuxuu ku shaqeeyaa Mac wuxuu ku shaqeeyaa Windows ayuu ku shaqeeyaa support fiican waa leeyahay marka Binance ayaa ah meesha oo wax walba lagala socon karo 24 hours shaqeeya cabdiqani abukar haddaan imool oo soo laabanayaa هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم وقت سلامي السؤال بان رمينا كوديو هل من نوع رمينا تدكو شيء يوربان شوغا باسبور صومالي جيجا بنجي عادي بان استعمالها رسمس برميت كي أنا وان هايستا بنجي عادي بان استعمالها كاسورت باسبور صومالي مركو يورب شوغا رسمس برميت كويس إنه باسبور هذا كلام بلم بيه بان ماينيا سؤال شيء واحد عادة magaceedaaba adag haddaan iibsado oo ilaahayba xoogaa ii gaadhsiiyo marka aan la baxayo cashuur dalalkan aan deganahay cashuur baa laska qaadaya cashuur ma layga rabaa mise cashuur laygama rabo waa mahadsanta waa su'aal aad muhiimsan tan hore horta baasaboorka Soomaaliga problem wuxuu ku qabaa Soomaaliya kuma qabo problem dadka taas waxaan rabaa inaan u mixnay baasaboorka Soomaaliga hadda aad ayaa loo adkeeyay waxaan laga dhigay mid maaragtay kuwa ugu adag ah hataa copy aan laga samayn karin oo fraud aan lagu samayn karin sida awgeed haddii aad ku nooshahay let's say Ingiriiska oo driving license aan leedahay waxba ma dhahan baasaboor Ingiriiska marka ID kuma dhahayaan Somali passport marna ku dhihi maayaan waxay ku leeyihiin kaliya verification ID-ga ayay arkayaan soo ahaan hadda haddii aan halkan joogo Facebook-gayga dhibaato ka timaado oo passport la weydiiyo kan aan haysto oo laba passport aan haysto kan saddexaad oo aan haysto waa Somali kan saddexaad haddii aan geliyo Soomaaliga ah wuu aqbalaya meeshaan joogo laakiin dhibku wuxuu ka imaanayaa adoo ka furaya platform ama investment ka furaya Soomaaliya ama Kenya oo passport Soomaaliya wato marka waayo N1 verification male tan canshuurta ah qaabkeed u shaqeyso aniga weli ma arkin iyadoo oo tax ama canshuur la dul saarayo dawladaha haday arkaan business trillion ah taban way la imaanayaan aniga markaan bitcoin investment aan ku sameeyo oo aan kala soo baxayo especially anoo kaarka isticmaalaya haddii aan cash point Ingiriis aan tago inta badan Ingiriiska aan kala soo bixiyo cash point sida ugu badan meesha yaalaan waan tagaa sida bangiga kalaan ugala soo baxaa laakiin weli ma arkin canshuur baa kaa go'day iyo waxaas haddii laakiin imaaraadka kale cash point ay leeyihiin meesha jooga Abu Dhabi oo kale waxa laga yaabaa in cash point-ga Binance uu leeyahay ama kuwa kale Coinbase ama shirkado private ay leeyihiin haddii aan geliyo wuxuu la mid yahay cash point-yo dukaamo qaarkood aan ku arkay Mareykanka iyo Canada aan ku arkay oo haddii aad kala soo baxdid ay bangiga kugu charge gareynayo xoogaa sentiyal kugu charge gareynayo bahalkan bangi male wuxuu ku xiran yahay system oo maaragtay oo virtual ah waay marka ilaa iyo hadda su'aasha daan soo laabto ma arkin taxable inay tahay haddii uu faa'iidada ay kordho sida bangiyada kale bangiga hadda kuma tax gareynayo tusaale ahaan lacagta haddii dawladda u shaqaysid ama shirkada u shaqaysid dawladdu automatically shirkada waxay ka goosanaysaa income tax wax la yiraahdo iyo national insurance contribution wax la yiraahdo laakiin so far aniga ma arkin lacag cryptocurrency laga helay oo laga soo saarayo oo laga goosanayo weli ana iga mahormaan maybe inay jirto laga yaabaa qofkii arkayna waan la wadaagi karaa waa mahadsantiin mahadsan aad u mahadsantahay ustaad cabdikani abukar hadduu na maqlaayo isaga leh laakiin naa maqal waa u malaynayaa fursadda soo siin doona insha allah cabdiyarahay salaamu ullahi dhammaantiin aad baa ii salaamaya cabdiraxmaan aburaas iyo maxaan ku dhahday awkombe iyo macallin cabdinaasir ismaaciil cabdinaasir soola
haddii aan straight su-aashayda u galo macalinka su-aasha aan weydiin lahaa waxa ay tahay macalin markaynu ka hadlayno cryptocurrency meelaha lagu kaydsado waxaan maqalnay inay u kala baxaan laba nooc oo kala ah maxaan ku dhahday hot wallet oo maxaan ku dhahday online noqonaya iyo maxaan ku dhahday cold storage wallet oo isna wuxuu noqonaya offline marka labadaasi macalin keebaa fiican keebaasi efficiency ah oo maxaan ku dhahday qofku maxaan ku dhahday uu geli karo oo maxaan ku dhahday de wixiisu aysan khalkhal ka geli karin su-aasha labaad aan ku weydiinayana waxay tahay macalin cryptocurrency ma noqon kartaa hanti dhaqaale oo lagu xisaabtami karo mustaqbalka dhow salaam aad ayaad u mahadsantahay su-aalaha muhiima waa absolutely without any doubt waa wax cusub dadkii traditional business iyo finance samayn jiray awal oo lacagaha dollarka ayaa ugu badnaa waxaa ku xigay eurogan cusub ganiga sterlinka yenka iyo lacagahan kale oo iska yaryaro carabta iyo ruushka iyo waxyaalahaas ah of course waa noqonaysa waa money of the future aniga I'm a believer anigu waan aaminsanahay maybe inaan bias ahay oo waqti badan aan kusoo dhex jiray waxyaalo badan aan ka arkay oo faa'iido leh oo khasaarana weli aanan ku arkin way noqonaysaa su-aasha labaad waxay noqonaysaa tabcan aniga mar walba waxaan aaminsanahay local safety-ga tusaale ahaan markaan wax sameynayo computerka markuu ku xiran yahay internetka waa wax iska furan yahay haddii firewall aan kugu jirin camerada waxaan xanjan dul saaraa waraaqan dul saaraa micnaheed waxaan ka wadaa haddii aan doonayo walletka localka ah kaasaa iga muhiimsan midka aan ku save garayn lahaa onlineka inkastoo blockchainka securitygiisa uu tahay wax aad ugu adag haddana wax internet ku jira mar walba securitygiisa way taqa lakin specifically qof adeeg kuu soo aadayay male serverada adduunku waaweyn ugu secursan waxa iskale Facebook waadna aragteen 500 milyan qofood ayaa laga soo jabsaday marka ogow mar walba waxaa jirta meel nugul oo vulnerability-ga ah haddii online laptopka waxaa kasii muhiimsan oo ka fiican iOS-ka native-ka ah oo uu ku jiro Apple iPhone-ka isticmaaloo kale way adkaanaysaa almost waa impossible in la soo jebiyo laakiin ma dhici kartaa wax walba ayaa dhici kara laakiin aniga local area network LAN-ka markaan wax ku save garaysto iyo WAN-ka oo dadka network yaqaana wide area network oo kan internetka ku xiran oo adduunkana iska furan waxaan idhaahdaa LAN-ka ii fiican oo local area network-ka ii fiican oo aan ku save garaysto marka wallet ahaan labadaba haddan waan isticmaalaa laakiin waxaan ku qanacsanahay waxay tahay kan app-ka ah isla markaana internetka ku xiran laakiin local ahaanka ah iOS-ka ama Android ku ahaan lahaa waa mahadsantahay waa mahadsantahay ustaad saaxiibada gaban noogu soo biray soo dhawaada si gaara cantoobo saaxiibkii aan arko sakariyahay soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الناصر هذا أيضا كسلام يا أنت كبعدي وحربينا كاويديو دانكن أولد كوينز كلو يقانو سين لو وضع الصعنو إثيريوم كا تكنولوجي كودي سيني هاي كريبتو كراسيا دردن إساقا يكودو لسيهين إن بدن فاينانس كوين كوكال إكسشينج كا إساقنا وا كوين مهمة مركا صدح oo kale manoo sheegi kartaa old coinada oo technology wanaagsan ku dhisan oo mustaqbal fiican leh marka Dogecoin laga yimaado oo qofka cusub maal gashan karo haday salahan tahay ama IDA ama VeChain ama wax kale manogol talin kartaa oo coin wanaagsan oo technology fiican ka dambeeyo ama se project wanaagsan aad baan ku salaam عبد الناصر sorry waa codkaan iloobay horta jahwareer aad weyn ayaa ku dhacay sababtoo ah waxaan isku qaladnaa inta badan waan idhahnaa bitcoin keliya haddaan maqalno bitcoin-kaasoo ah kan keliya oo loo maray cryptocurrency saad sheegtay mundulka ugu weyn ee wax walba ay dusha ka saaran yihiin waa ethereum oo teknolojiya ka duwan gebi ahaan ku dhisan iyo qaabka maaragtay loo sameeyey laakiin ogow kaa keliya ma aha trade-ka ay sameeyaan oo billioniska ah waxaa jira cryptocurrency xataa anaga aana maqal oo fara badan oo hadda adduunka ka jira oo maalin walba dadku ay ka ganacsadaan laakiin aanan ahayn hadda waxaan maqnaa BTC-ga maqnaa Ethereum ayaa maqnaa BNB-ga ayaa maqnaa oo Binance ka leeyihiin Ripple-ka USDT ayaa jira oo Tether USD yiraahdo Doge-ka oo hadda balaayo noqday oo kor u socda oo trade-kiisa u yahay baalkii waxaa jira kuwa kale oo la yiraahdo Cardano ADA .LTC BCH oo ah Bitcoin Cash-ka
oo xogaa hoos minus ugu socda haddii loo fiiriyo technology ahaan technologyga oo flexible-ka ah isla markaana ah dynamic-ga ah hadda waxaan dhihi lahaa ethereum iyo xrp ripple wax gaaray technology ahaan ma jirto dadka waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan bitcoin maxaa dhacay of course bitcoin waxa caan ka siliga wuxuu yahay 55,900 ayuu marayaa haddii loo fiiriyo ethereum oo kale oo 2,000 marayo ama haddii loo fiiriyo bnb-ga oo binance kale platformka 433 marka mar walba mid cusub ayaa soo baxay laakiin waxba tari mayso mid cusub soo baxo technology khatar uu ku soo baxo ilaa uu ka helo publicity iyo market capital uu ka helo intaas ayaa laga fiiriyaa marka raadinaysid investment wanaagsan ha aadinkaani kuu sheegay waxaad raadisaa the name and market capital ka raadso waayo adigu laftigaaga shirkad oo aan haysanin 1 milyan oo laakiin haysata 1 trillion oo kale BTC waa isku halayn kartaa marka BTC kaliya ma ahan in hal bitcoin la gato oo 55 lagu gato waxaad gadan kartaa meesha ugu hooseyso oo 0.00000 binary-ga 0000 meesha ugu dambaysa waad gadan kartaa marka dambana wuu sii koraya kaas waxaa laga yaabaa in 1,000 ama 2,000 3,000 oo dollar ah ku gadatay 000 marka su'aasha haddaan kusoo laabto aniga waxaan dhihi lahaa mar walba unfair ayaan ku ahay sababta waxaan arkaa market capitalization suu u socdaan ku arkaa dojka cirka iyo isku sii shareeraya wuu sii socdaa platformka lagu dhisay iyo teknolojiyadana waa mid very advance ah oo ilaa iyo hadda wax dhibaato ah laga sheegana laakiin comparison ku samayn kara isaga ethereum maya waayo waa gebi ahaan blockchainkas ay u isticmaalaan waa ka duwan yahay waa ka ansiyanaysan yahay ansiyaan waxaan ka wada waa duq ayuu ka yahay softwareka loo isticmaalo waa ka duwan tahay evm ayaa loo isticmaala bytecode wax la yidhaahdo dadka technicada yaqaana aad u yaqaano 2015 ayaa la dhisay waana maaragtay aad ayuu waayeel uga yahay hadii loo fiiriyo marka anigaan waxaan dhihi lahaa wixii ka soo hara dogecoin wuxuu noqonayaa on bitcoin ethereum iyo ripple ayuu noqonayaa waa mahadsantahay ustaad aad mahadsan tahay waxaan xasuusinaynaa su'aaluhu waa hal su'aal si saaxiibada kale aan fursad u siino su'aashaada kale oo qabto waxa laga yaabaa dad kale inay weydiiyaan oo kaga faa'iideeyaan marka soo dhawaada ustaadka mar labaad iyo mar saddexaad waqtigiisa qaaliga waa uga mahadcelinaynaa cabdiqani abukar hadduu soo laabtay aan siiyo cabdiqani ma maqashaa cabdiqani ima maqlo waxaan siinayaa cabdullaahi xasan cabdullaahi xasan asalaamu calaykum ustaad waa ku salaamay verification waa ku